waxaan doonaynaa inaanu dhahno war dadkani fircawn kama qalbi adko dhalinyaro dhagaysta laakiin waxaa ii muuqda dhalinyaro yar ah oo hadda ku cusub dacwada iyo social mediaha in ay walaaqayaan waxay culumadu ay wanaaga oo waliba ay leeyihiin anigu ma taqaanaa ma waxaad imoysaan wadaadada masaakiinta ah adna waa lagu caayi oo waa lagu aflagaadayni Soomaali garan marka dacwada u dhow mid baa soo baxay wuxuu leeyahay dadka nooca iyo nooca sameeyay jinkay caabudaan a'uudu billah uu leeyahay hebel ninka dila wallahi jannu galaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun social media waa xaamilo 9 bilood buu gaaray wuxuu dhali doono 2025 2026 si guud oo caam ah ma hakada turadul ibil horta sida geela looma arooriyo oo aan macnaheeda aan u jeedo laba qolo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاله أدبنكم هاد علينا ميل كستود أدونك جوكتان عمر ديري عافاد الله نسيو رمضان جبدان الله ينجا أقبله يدو رمضان لجوجرو بلا وجه رمضان كا وحن مقليني دقيه نكسو دعي إيشيني أركيسي دتكو إسقو سنية عد سهريفيا bulshada Soomaaliyeed social media ku jirta inta ugu badan barnaamijka aanon sii gelin waxaan jecelahay inay ila soo dhaweysaan on barnaamijkan inoo tafaftiro inoo qaada dhigo aqligiisa iyo maskaxdiisa inuu soo kordhiyo walaalaha Soomaaliyeed u reebo waxa maskaxdiisa ka guuxaya ay tahay in Ramadaan iyo Ramadaan la'aanba qofka muslimka ah laga doonayo ay social media ku jira waxaan jecelahay barnaamijkaas inuu nala faguro Sheekh Maxamuud Sheekh Xasan oo loo garan ogyahay Sheekh Abu Dalha marka hore sheekana soo dhawow social media uma war liid waxa ka socdo waad ogtahay talada aad siinaysa dhalinyarada Soomaaliyeed social media ku jirta ee qaabkaad u jeclaaleed in social media loo isticmaalo dhanka ducaada ku jirta محاد به ليد أيكنا سودو شيغنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أيها الأحبة في الله يحبكم في الله ولالكي غالي سفير الإسلام أم سيف الإسلام وحان كاغم هذه علينا يا dareenka aad u qabto da'yarteena inay toosaan inay rabbul izza ay ku xirmaan inay akhlaaqdooda ay ilaashadaan in ay dad wanaagsan oo diintoodii iyo dadkoodii iyo dalkooda u khidmeeya oguna khidmeeya social media inay noqdaan dareenka noocaas ee kugu jireed igala sheekaysatay walwalka arrinka ka haysta iyo walbahaarka adiga iyo dhammaan ba naga wada haysay inta wax garadka aba su'aasha waan kaaga mahad celinayaa marka koobaad jawaabteeda oo koobanna waxaan doonayaa inaan kalimaadkan ku soo aruuriyo biidnillaahi subhanahu wa ta'ala qodobka koobaad waxaan leeyahay si guud oo caam ah ma hakada turadul ibil horta sida geela looma arooriyo oo aan macnaheeda aan u jeedo laba qolo qolada koobaad waa qolo social media khalad ka fahantay ila ay ku wareereen ila ay ku dhaxwaasheen ila ay u maleeyeen noloshuba inay sidan ay tahay meel ay wax ka qabtaan ay garan waayeen qoladaas ayagiihi waa qolada u isticmaasha social media sida khaldan ama waqtigooda oo ay ku dilaan ha noqdo ama qaab xun oo akhlaaqda islaamka akhlaaqda muslimka akhlaaqda sharafta dadka sharafta badan akhlaaqdooda khilaafsan ama inay isku dhex qaawiyaan ha noqoto ama ha noqoto xataa inay isku dhex furaan
oo dhaqan la yaqaanay ma aha. intaasoo qoys baad aragteen in social mediaha ay isku dhex furayaan. dadka noocaasihi wax yar markuu ku soo biiraba social mediaha kula soo ordaya. dadkaasi dad sax ma aha. qaabka noocaasi dadka u fikiray waxaan leenahay sida ma haakada tuuradul ibil, sida geela looma arooriyo. isla ayaga qaybo kamida waa la shaqaystaa, xalaal baa lagu shaqaystaa, sharaf baa lagu shaqaystaa. inaad ka fikirto wax walba oo dadka aad ku soo jiidan karto indhahooda, falowna lagu saari karo, sheerna lagu dhihi karo, inaad ka shaqaysto oo taqdiid u dejisto u fikirto, meel haadaana bay kaa tuuri siday dad badanba ooga tuurtay. qalbi madoobaadna baa kugu dhici. bulshadana marka dambe waxaan cay ahaynba kala kulmi maysid meel walba ood gaadho. qolada waxaa leeyahay war sidaa geela looma arooriye si wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadan uu waasaca ka dhigay oogu noolaada oo sharaf ah, oo idinka diintiina ilaashada, oo dadka diintooda u ilaaliya, oo akhlaaqdiina ilaashada, oo caruurtaad dhasheen ama dhali doontaan iyo kuwa idin dhalay ee idinla dhashay sharaftooda u ilaaliya. inay dadka la kaftami karaan ka dhiga, ha ka xidhina in ay dadka kaftankooda uu ka xidhmo, ha ka dhigina sidaas. qoladaa horta waa qolada koobaad. waanadaana ilaahay bay dartiiba iga tahay, cidna ma magacaabin, laakiin qof walba asaga is yaqaan. qolada labaad waxaan leeyahay maa haakada tuuradul ibil, sidaa geela looma arooriyo. waa qolo dhalinyaro ah oo jazaahum allahu khayran u soo guntaday, oo u soo xaydxaytay, oo u soo diyaargaroobay inay dadka noocaasa wax gaadhsiiyaan oo ay khayrka gaadhsiiyaan. waa laba qolo marka. qolo waa ragga ducaadda ee culummada ah kuna dhaqmaya udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma, xikmad dacwada u gudo, u qosol dadka, u muusood, qalbiga u fur, u sabro, u dulqaado. waayo waxaad wadatabaa qiimo badan. iimaan baad u wadaa, dacwo iyo diin baad u wadaa. in lagu maqli waayana lacallaka baakhicu nafsaka anlaa yakuunuu mu'miniin, inay mu'miniin noqon waayeen miyaad naftaada u halaagi baa nabiga lagu yidhi. kaasaa shicaar u ah dacwada. yasiruu walaa tucasiruu baa shicaar u ah. dacwada dadka u sahla oo dadka ka iibiya iimaanka aad haysataan. wamaa akthar, culummadu aad bay u badan yihiin. kala soo bilowday ama kala soo bilaabay social media min baltok ilaa maraaxishi uu soo maray oo dhan, oo dadku maanta social mediaha ku jira si niyad fiicana u dhegaystaan, oy axkaamta ka qaataan, oy waanadooda ay dhegaystaan, oy culimo u yaqaanaan. qolada kale waxaan leeyahay waa qolo da-yar oo dhalinyaro ah, welina dacwadu ayna biyo dhigin. waana arrinta aan maanta arkayno. beddelka ay wadadaa mari lahaayeen oy wax iibin lahaayeen ayay noqotay in ay social media ayaga ay wada tirsadaan, iscaayaan, isu goodiyaan, isu faanaan. mar ay qabiil gasho, mar ay qof gasho. mikrofanka in la isu soo fadhiisto. maa haakada tuuradul ibil, geela sidaa looma arooriyo. dacwana saa kuma midho dhasho. dacwadu waxay u baahan tahay raxmad iyo naxariis. dacwadu waxay u baahan tahay sabar iyo dulqaad. inaad dhahdo qofka aniga i caayayaa weylahu 80 jeedal baa lagu dhufan. nabi maxamed baa la caayi jiray, adu maxaa tahay calayhi salaatu wassalaam. saaxir baa la dhihi jiray nabi sal ly slam. lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal. munaafiqiintii ku dhex jirtaa dhahaysay. wamaca dalika ninkii saas ku lahaa waa kii ku tukaday. walaa tusalli calaa axadi minhum maata abadan ay kusoo degi doonto. waxaan doonaynaa inaanu dhahno
وردتكني فرعون كما قلبي أتكو قال يا رجيسته دتكن كتير السوشيال ميديا ها وانقر يا قار قال أبي كتير كره وانقر يا قار طغاضة وحد جذب بدن بكتيره وانقر يا لكن تا معنى هذا معها إن دعوة الله عيريه إن لوسي إريا معها وإن لوسو إريا وإنه السبب كاجا كسر دوادا أذيك نعم بلد الكلام هوس كمان والبحوار كعلماء أي لجلان ضدك الشبهات كمسكح الله لوش ويبلغيسو ما يقف النام إلهي كسو هنوني سبحانه وتعالى ما يقف الشبهات أي كجر مسكح ضوضا أيو إلهي سبحانه وتعالى كسو عليي ما يقف قال أبو إلهي كسو هنوني وتاريخ هذا الإروي لكن وحقيقي موقضة لأن يرى oo hadda ku cusub dacwada iyo social media in ay walaaqayaan waxay culimadu ay wanaaga oo waliba ay leeyihiin anigu ma taqaana ma waxaad imoysaan wadaadada masaakiinta ah war wadaad miskiina hadaadan noqonin oodan dacwada latifin ada irka roob ku og adna waa lagu caayi oo waa lagu aflagaadeyni Soomaal garan marka dacwada u dhow mid baa soo baxay wuxuu leeyahay dadka nooca iyo nooca sameeyay jinkay caabudaan أعوذ بالله كلمات كوها الله يسمى الدريميسا أقول يرى لن يرى أو قرك أصاب حيو كلمات كوها الله يسمى الدريميسا عليس كأيلا هاي نظر انتا لأك بي أجي سنيسا مسافة انتا لأك بي دب أجيسا دعوة أرجع نوع عاص الله مدبا وحولي هاي وحان كل دارن هيا أنت إلهي بقول دارن هيا إن أهبل من كل إله هذا وفنان يا وانين هيسا يقصعدا oo fanaannimada ma lagu gaalooba qofka inuu hees qaado ma lagu gaalooba goormaad khawaarij noqoto wada social media khawaarij ba ka soo dhaxbaxday dhalinyaro yar oo fikirka khawaarijta xambaarsan baaba soo baxay baad waliba dhaar ku daraya geesinimada ولهي هبل نينك الدله والله جنو قليا إنا لله وإنا إليه راجعون والكلمة وينا إن تكون نارته هبل با جنة قلي قف مسلم دي يجيبون الجنة قلي وفعل خوارج وي للي يرضى إلهي الدرتي بنكوانين إياه للي يرضى فسقي يا حمان تضدك كفا في نيسانا والله إذن كعلين أو والله إذن لهالي لكن وإذن إمرينينا هنون كان ربي مقعنت أوجرا أنك نوغو متشرو أنيقا هنون قعنكو ما هيستو أنيق إذن لهالي وحا كدن بينا يما أقانو نينكا نارن هيا وحو كدن بين دونا ما يقانو هرتا نينكا نارتيو إلهي أصنقو أيلي والله هبل نينكا ديلا جنو قليا هرتا ربي أصنقو بالي رمضان إيا بالرمضان إيا طبعا كدن بادو ولي بان هيسا مدبا دينتا كحد قد بيه ما أقولين أرنكا سيدا أن نتنبأ أقولين وحان لها دعاء داس لن يرضى إزداتية سوشيال ميديا هنا ورير هورله هكو بيرينينا هذا حكمة كو بيرينا يسان سور دوادا هذا إذن كو عرسانا يسان ميلا القونا اسكو عرسانا لكن دقال كبا سوشيال ميديا هلا سو قشين إذن كو لن يرى إذن كو دعاء هم مقعي إن الحمد كو باللابانيا وحان رجينا إياه كلمة قلبي بيكسو قوضي إني قلبي قشو وحا قرصون سو سعودانا كوين او سوشيال ميديا وحنبارسن yahay waa xaamilo way social media waa xaamilo 9 bilood buu gaaray wuxuu dhali doono 2025 2026 ilaahu sharkooda naga xijaab ilaahu sharka social media wuxuu uu dhali doono oo shar alla naga xijaab dhalinyaro waxaan ammaanayaa halkan dad haddaan damco inaan tiriyo gabdhi iyo wiilal aan soo koobi karin oo si sharaf leh social media ugu jira oo si sharaf leh ooga dhax shaqaysta oo si sharaf leh kelimada wanaagsan dadka iskugu keena aad baan u ammaanayaa haddii loo baahdana waqtigeeda intaan anigu aan haddaan fursad u helo waan tilmaami doonaa si ay dadku marag iyo makhraati iiga noqdaan laakiin aan dadka magacaabo inta badan anigu madhabkayga ma waxaan jeclahay inaan dadka ku dhaho kii wanaagsanowna jazaaka allahu khayran kii warkan uu ku socdowna waa is ogtahay jooji yaa baaqi alkhayri aqbil
wayaa baaqiya shari aqsir siduu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam uu dhihi jira maa baalu aqwaamin ficilkaa la rabaa in dadka laga saxo ashkhaastu muhiim ma aha laakiin ficilkaa muhiim ah shaksiga markii laga maari waayo hala gaadho laakiin ficilka in la saxabaa muhiima aad baa idin jeclahay kelimadaa waxaan oga jeedoon islaax ahayna ma jiro in uriid ila alislaax ma statactu midka xaggan aan kala hadlay iyo midkaan dhankan kala hadlay iyo aniga isla hadlayaba wanaag unbaa nala doonayaa kulligeen qofka maanta ku jecella waa qofka ku dhaha dariiqa geela laguma arooriyo sidaana xoolaha looma waraabiyo kumana anfacayso kelimo kaa soo baxadoo ku halaagtaa jirta ficil kaa soo baxoo ku halaagaa jira ilaahay looga xishooda subxaanahu wa tacaala ilaahayna aan ka baqno subxaanahu wa tacaala aad baa idin jeclahay dhallinyaradayda ii noolaada ilaahay diintiisana ku noolaada ina addiina cinda allahi alislaam sayf alislaam safiir islaam su-aashaadii weydiisay qiimaha iyo qadarinta lahayd jawaabteeda intaasu alla i waafajiyey wamaa tawfiiqi ila billah calayhi tawakaltu wa ilayhi uniib wasalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu waad mahadsantaha sheekana allah ku barakeeyo cimri dheer caafimaad allah ku siiyo maskaxdaad noo shiishana allah kuu barakeeyo awlaadaada allah kuu barakeeyo xoogaaga allah kuu barakeeyo reerkaaga allah kuu barakeeyo waxaan leenahay sheekana jasaaka allahu khayran mar labaad iyo mar saddexaadba maadaama aada maskaxdaadii cilmigii ku jiray ilaahay uu ku baray aada noo soo quftay waxaan ku leenahay miisaanka xasanaadka maanta maalin aad uga baahi badan tahay allah kuu saaro walaalaha soomaaliyeedna waxaan ka rajaynayaa inta caqliga u saaxiibka ah maskaxdooda iyo caqligoodana shaqaynayo inay waanadaas sheekana maqli doonaan ayna ku camal fani doonaan idanka alle walaalkay soomaaliyeedna daawanayo waxaan kaa rajaynayaa inaad walaalaha kale usii gudbi doontid adigana ajar aad ka heli doonto insha allahu tacaala aan ilaahay kaaga rajaynaynaa intaasi intaan dib dambe isugu imaan doono wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh